Soomaalida ku nool qurbaha oo inta badan eheladooda lacag u dirahaya waxa ay saameyn weyn ka soo gaartay xayiraadihii lagu soo rogay wadamadii ay deganayeen waxaana la bilaabay qaab online ah in lacagaha la isku diro hadaba qaabkaasi sidoo ay oo la jaan qaadi kartaa bulshada Soomaalida waxaan ka wareysanay Mustafa Usman Ibrahim walaal runtii deynta waa ogtahay oo adduunku waxa la isla marayaa innovation iyo technology marka inta badan dadka Soomaalida Facebook-na way haystaan WhatsApp-na way haystaan dadka qurbaha joogaana runtii lacagahooda waxay ku helaan bangiyo marka online bangiyo ah ay haystaan marka online bangiyada lacagaha marka loogu soo shubo waxay ku bixin karaan coin-kii waxay ku bixin karaan waxyaabaha ay u baahan yihiin kaadad geysitaan marka xagga adduunka loo socda waxa weeye waa system waa digital waa platform furan oo runtii qofku fahmi karo maadaama dadka Soomaalida ay u badan yihiin dad waaweyn oo intooda badanna aysan teknolojiyada ama digitalka aysan sidaas ugu sii faradhudubneen marka qaab noocee ah ayay ula qabsan karaan habkan casriga ah ee lacagaha la isugu diro walaal iminka Europe joognaa Europe ka shaqeynaa marka dadkan Soomaalida ayaynu ka mid nahay ummadan Ibraahimka ka mid nahay sida u isticmaalaan qaabka isticmaalayaan waa qaabab aad u runtii fudud marka dadkan qurba joogta lacagta waxay ku helaan bangiyo oo online bank bay ku galaan systemkooda marka xawilaadihiina platformyada jireenka iyo systemyada la sameeyo online marka qof way u sahlan tahay inuu fahmo muhiimada waa in website-kii booqdo ama application-kii la soo dego kadibna uu si easy lacagtii u dirsado ehelkiisana ku gaarsiiyo dadka gudaha joogaana iminka qaababkan sida M-Pesa oo kale sida EVC oo kale sida Zaad oo kale marka dadka gudaha joogaana dawad ka dharagsan tahay oo way ogyihiin in lacagtooda telefoon loogu soo diri karo si aad u fudud marka 80% baa la oran karaa in Soomaaliya oo kale 60% waxa la oran karaa Kenya mobile wallet-ka aad u shaqeynaya ama mobile money transfer-ka waxa la dadkan qurba joogtuna walaal bangiyo haystaan telefoon smartphone casri sitaan laakiin hadday ogaadeen oo maadaama culayska nimka COVID-19 uu yimi ayay runtii duruuftan ku keentay inay dhinaca online-ka runtii ay isticmaalaan marka qolyahana waxaan ka mid nahay runtii imika platformyada ama xawlaadaha online-ka ku shaqeeya maadaama hadda jaaniska ama wadada kaliya ee furan ay tahay in la isticmaalo habka lacagaha la isugu diro online-ka dadka caawinaya in dadka ay fahamsiiyaan qaabka ay u isticmaalayaan habkan appka ama application-ka ay ula soo degayaan si ay wax ugu dirsadaan way jiraan oo inta badan dadka wadada aad u qalbi wanaagsan dadka Soomaalida wadada caawiyo jecel marka kama faqad imika wuxuu oranayaa war xagaa ugu dhawo asxaabka saaxiibka xuuysatay xagaa isticmaashaa ama xagaa ugu dhawo lacag loo diri karaa ama xagaa marin karaa markii wuxuu ku leeyahay platform kale isticmaala ama system kale isticmaala kan la soo dejinaya isaga caawin kara way jiraan runtii shirkadaha laftigooda qayb bay leeyihiin support marka annaguna waan leenahay qayb support oo runtii aad u faradhudhuban oo runtii aad loo caawinayo iyo luuqadii laftigooda oo shirkadaha jira runtii badan marka shirkadaha laftigooda hadii luuqadii Soomaaliga laftigooda ay ka saaraan Suudiyad waxa filayaa dadku fahmi karaan marka systemyadana waxaan shirkadaha ugu horeeya dhinaca Soomaaliga xoog ka saaray ee digitalka xagga Soomaaliga runtii awood galiyay baan nahay luuqadoodiina xagga wadankeena aan ku salaynay wax walba waan gartay adigu ka Mustafahan maadaama aad ka mid tahay dhalinyarada ka shaqeeya xawaaladaha kuwa online-ka iyo kuwa caadiga ahba wili ma aragteen wax caqabada ama wax cabasho ah oo dadku ay ka cabanayaan qaabkan online-ka iyadoo ay tahay hadana wadada kaliya ee la haysto way jiraan walaal cabasho runtii cabashooyin jiraan laakiin dadku waxaan u fududeynay telefoonka inay helaan meel ay dadka naga soo wici karaan laakiin qaabka ugu fudud ee dadku u fahmi karaan ayaan ku salaynayba maadaama lagu shirkadan asaasna qaabka ugu fudud ay wax ku fahmi karaan qaabka ugu sahlan ay systemkan ku soo booqan karaan marka dadkeenu waa dad aad maskax furan waa dad u baahan in la hago marka ama telefoon aanu ka hagno ama saaxiibkii ha hago way fahmi karaan waana runtii way system aad u fudud oo ay fahmi karaan xagga shuruucda oo kale baan soo karaa xagga shuruucda oo kale ayaa runtii dadku ay u baahan yihiin laga wacyi geliyo oo adduunka wax walba sharci iyo nidaam buu baahan Mustafa Usman Ibrahim oo uu rameeyay Samira ayuu kaasi